aad loo badiyo iyo faa'iido badan ay leedahay. Shalay waxaan soo sheegnay istighfaarta, maanta waxaan ku xijinaynaa oo iyana aad muhiim u ah in la badina la is amray salliga lagu saliyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo fadli badan iyo ajir badan ku soo arooray. in nabigeena aan ku salino sallallahu alayhi wasallam waxaa qiimo iyo fadliba noogu filan in ilaahay uu leeyahay inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. wuxuu ilaahay sheegayaa in ilaahay uu ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam, malaa'igtuna ay ku saliyaan, innagana la ina amray inaynu ku salino sallallahu alayhi wasallam. marka ilaahay salliga nabiga ku salinayo waa thanaa, waa ammaan alle uu ammaanayo fi lmala'i alaclaa uu ku ammaanayo. innaga nabiga waa ducaan u ducaynayna in ammaantaas iyo weynayntiisa nabiga loo sameey sallallahu alayhi wasallam. sidaa awgeed baa ku soo arooray fadli fara badan iyo ajr fara badan ku salliga lagu saliyo nabigeena sallallahu alayhi wasallam. marna isagaynu darajadiisa u ducaynayna in kor loo qaado, inaguna waxaan ka helaynaa fadli aad u badan. مثلا نبي يقول له صلى الله عليه وسلم في سيدة صحيح مسلم كسوغان: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وفكي هل مرء يصليها إلهي باتوانقر كسليها. ومركا النبي هل مرء كسليه صلى الله عليه وسلم هل مرء كليه بدل كذا أوامرين وحد هلسا توانقر إلهي نكوسليه وصيلها كوسلنا إياه toban naxariis iyo barwaaqo iyo wanaag ba alla ku siinaya subxaanahu wa tacaala. bal nabigu wuxuu gaarsiiyey sallallahu alayhi wasallam salligiisu aad loo badiyo inay leedahay faa'iido aad u weyn. oo nin saxaabi ah wuxuu leeyahay rasuulka ilaahayow sallallahu alayhi wasallam, waxaan doonayaa in aan salligaaga aad u badiyo marka aan ducaysanayo, qayb intee la-eg baan ka dhigaa salligaaga. kaasa nabigu wuxuu yidhi: ما شئت انت ادونتو سليغا كدي. مثلا مربعد معنا دعيسته ساعه نص ساعه 8 دقيقه انت ان لايق بان سليغا كلي اوغويا. النبي يقول انت عرفت اوغو، لان انك رسولك الهيو الربع افر ميلود ميل كميده دعاء دعيسني حدان سليغا كدي كور. النبي يقول عليه الصلاه والسلام: ما شئت فان سدت فهو خير لك. او سارتيال haddaad ka sii badisana waa kaaga khayr badan tahay. waayo ka waran haddaan laba meelooda meel ka dhigo salligaaga. nebigu wuxuu yidhi waa saartayeel, haddaad ka sii badisana waa kasii fiican tahay. waayahay 3 meelood oo 2 meelood haddaan ka dhigo ka waran ducaadan ducaysanayay salligaaga. nebigu wuxuu yidhi salmaa shi'ta, sidaa doonto yeel, fain aradta fahuwa khayru lak, haddii aad ka sii badisana kaaga khayr badan. لأنه وحليه السحابي قال سبحان رسولك إلهيو أجعل لك صلاتي كلها دعاء دي أو دنبا وحان كده يسلي قاقي مر أن دعيسن لها وقت في عنا 8 دقيقة بانبوسك الدعاء وحان كون بدلية إنا كوصل لي أكلية. نبي وحلي صلى الله عليه وسلم إذن هذا سيدا يسو أو دعاء دي أتكدو تسلي أكلية تكفى همك وحالله علي وحملك وهيي ولا فيديه ويغفر لك ذنبك ولا رافيه. يعني سلق النبي قال بديو صلى الله عليه وسلم لبا شيء با كدشه waxa ka dhasha qofka oo wixii murugo iyo hammi ku hayay laga faydo oo laga daboolo iyo dambigiisa oo la dhaafo. culimadu waxay leeyihiin markii qofka muslimka ah intuu adduunka joogo iyo intuu aakhirada joogo labadaba waxa kaliya oo dhiba ama waa dambi uu galay ama waa waxa walwal iyo murugo ku haya, labadaana waxa lagu faydaa nabiga salligiisa oo la badiyo sallallahu alayhi wasallam. yani waa shay aad u weyn, waa qofka noloshiisa oo dhan bay tilmaamaysaa inuu badbaadinayo adduunkii aakhiradiisaba ay ka badbaadinayso, dambigiisna lagu dhaafo, hamiga lagu faydo. ajr fara badan baa nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam. waxaa ka mid ah nabigu wuxuu leeyahay: inna lillahi malaa'ika sayaaxiin fil ard. ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig
dhulka wareega shaqo kale ma qabtaan waxay isoo gaarsiiyaan ummadayda salliga igu soo salinayaan iyo salaanta isoo salaamayaan yani malaa'ig dhan oo ilaahay u abuuray baa shaqadoodu waxay tahay in ay dhulka dul wareegaan oo socdaan oo qofkii nabiga ku saliyaba sallallahu alayhi wasallam ay nabiga gaarsiiyaan ku soo saliyay sallallahu alayhi wasallam waxaa kamid nabigu inuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam soo badiya saliga aad ugu soo saliyeysaan maalinta jimcada ah maxaa yeelay maalin kasta oo jimca waxaa la isoo bandhigaa ummadayda saligeeda kiina ugu saliga badan baana igu dhow xagga mansilka iyo deegaanka waa shay kale isna fadli badan inta magacaaga la qaado oo nabiga loo sheego oo haddana ha dhowto marka aakhira la tago baa ku sii dhawaanaysaa waxaa ka mid nabigu sallallahu alayhi wasallam ma min muslimin yusalli alayya illa sallat alayhi almalaa'ika ma jiro qof muslima oo igu salinaya illa isagana waxaa ku salida malaa'igta ku salida waxaa ka mid nabigu sallallahu alayhi wasallam man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi qofkii igu saliya isagoo qalbigiisa daacad ay ka tahay oo dhab ay ka tahay oo markuu ku salinayo qalbigu soo jeedo marna waxaa laga yaabaa adigoo meel kale ku maqan oo qalbigaagu maqan yahay oo hawl kale ka fikiraya inaan nabiga ku salido marna waxaa laga yaabaa si daacada oo qalbigaagu soo jeedo inaan nabiga ugu sallallahu alayhi wasallam markii qofkii sidaa yeelo si daacada oo qalbigiisa iga saliya sallallahu alayhi biha 10 salawaat ilaah baa 10 goor ku saliya oo 10 naxariis siinaya ورفع بها 10 درجات كورنا وحا لو قادا 10 درجه وكتب له بها 10 حسنات 10 وناغنا وا لو قرا ومحى عنه 10 سيئات 10 حمان وا لغا ترترا يعني وحا سو دنو اجرا وحا اسكله كسلنت النبي صلى الله عليه وسلم ضلحه وحلي رضي الله عنه حديث الشيخ الباني صحيح لي ما waxaan arkay nabiga aad u faraxsan oo wajigiisu nuurayo sallallahu alayhi wasallam markaas nabiga waa faraxsanaa waa nuuri jiray kaas waxaan rasuulka ilaahayo maanta siba waxa kaaga muuqda wajiga iftiin iyo nuur iyo kaas nabiga wuxuu haayo waxa ay malku jibriil wuxuu ugu dhahay man salla alayka min ummatika salatan ummadaada qofkii kamida oo hal mar kugu saliya kataballahu lahu 10 hasanat ilaahi wuxuu u qoraa qofka 10 wanaag ومحى عنه 10 سيئات وحكم مسحات 8 حمان أما الدنبي ورفع له 10 درجات 8 درجات كربا الله قادا ورد عليه مثلها وحي وكوسلي من لمدنا والغسلين يعني هو شيء آد أوين ولا ليال وقت السنة شيء قفك وبديه كعل عليه وحي علامته إنه تعليها قفك تعليها وبديه هلك يسي كشكين تيسي كوسلين تنبي أن كوسلين صلى الله عليه وسلم وعلامة محي موجنيسا إنه جعلناها كورهينتيس يكسلنتيس ما حل كستا وقت كستا وحاكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد متشر قف مسلمة وإصوص سلامية بمعنى صلي إسلام توقع السعوداني إلا رد الله علي روحي إلهي وحيوسع علي الروح ذا حتى أرد عليه السلام إلى أن أتواب سلامتك الرديو وشيء لو قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام وسلامتك قاضو وسلقا ولقاسيو وفل أدوين ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه وحاو تريا فلقا أي لاذهي وناقا أي لاذهي النبي صلى الله عليه وسلم وحاكم ذا وحليه وهرين وحاذير قريسي أمرك إلهي سورة موسى لهن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر معها أمر كي إلهينا هرقلسي وفائده أرنك الله بعد وحي سلقا وافقيا سلقي إلهي سلقي ملايكته هذا كلا درجة سرية هكذا فل بالنادانة لكن فعل إلهي وسميه وملايكتنا السماء سيبا كو ديانيسا وحاكم إذا قفك إنه هليو إن إلهي وإن بدن قفك كسليو إن حديث فر بدن أوسي فائدة كمتها وحاكم إذا إن قفك تومن درجة لو قريو مركز النبي كسليو وحاكم إذا إن توبن دم بلغة التريو وحاكم إذا إن توبن درجة
kor loo qaadayo. waxaa ka mid a qofka saliga nebiga badiya inay u badan tahay ducada in laga aqbalo. waxaa ka mid a faa'iida saliga nebigu leeyahay in maalinta aakhiro aad ka mid noqoto dadka nebiga uu shafeecayo sallallahu alayhi wasallam. waxaa ka mid ah inay ka mid tahay asbaabta lagu dhaafo dunuubta. waxaa ka mid ah saliga nebiga faa'iida uu leeyahay inay ka mid tahay waxyaalaha hamiga iyo murugada lagu faydo. waxaa ka mid ah waxyaalaha fadliga ay leedahay in maalinta aakhiro qofka uu noqdo dadka ugu dhow ee nebiga agdiga sallallahu alayhi wasallam. waxaa ka mid ah faa'iida ay leedahay in qofka arrimihiisa iyo baahidiisa loo gudo oo la daboolo. marka saliga nebiga badisid wixii baahiya iyo duruuf xaalad aad leedahay waa laga daboolayaa. waxaa ka mid ah in nebiga sallallahu alayhi wasallam uu ka radinayo salaantii iyo saliga ku saleysay in nebiga kaaga jawaabay sallallahu alayhi wasallam. waxaa ka mid ah in fadhiga meesha la fadhiyo ee nebiga lagu saliyo ay baraka yeelato. waxaa ka mid ah in meesha lagu saliyo fadhiga laga ilaaliyo xasro iyo murugo laga ilaaliyo. waxaa ka mid ah saliga nebiga in faqriga uu tagsiiyo sunnadu sheegay sallallahu alayhi wasallam. waxaa ka mid ah in nebigu uu dhahay qofkan ugu san waa bakhayl, markaad ku salido waxaad ka baxaysaa bakhaylnimadii. waxaa ka mid ah wax ka badbaadaysaa habaarka nebigu uu habaaray qofkii aan ku saliyin. waxaa ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn ee saliga nebiga lagu helo in ilaahay uu ku barakeeyo waqtigaaga iyo camalkaaga iyo cimrigaaga. waxaa ka mid ah inuu yahay waxyaalaha lagu gaadho ama lagu mutaysto saliga nebiga oo la badiyo naxariista nebiga sallallahu alayhi wasallam. waxaa ka mid ah in maalinta aakhiro siraad marka la marayo waxyaalaha lagu badbaado ka mid yahay. inahaasuna waxay muujinayaan marka walaalayaal inaynu ku dadaalno carabkeena inaan barno saliga nebiga sallallahu alayhi wasallam xilli kasta iyo waqti kasta. qaabka ugu fudud ee la oran karana waxaa muhiim ah qofka inuu kulmiyo saliga iyo salaanta. yaa ayuha alladina sallu wa sallimu, nebiga u duceeyo oo in ammaanta loogu duceeyo ilaha ammaano iyo in nabadgelyo loogu duceeyo. marka qaab kasta ood u kulmiso labadaas way ka ansaxa saliga nebiga ka ansaxaya. allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad inta hadaadka ka ansaxaya. labadina waa kulmisay macnaheeduna waxa weeye ilaahay oo nebiga ammaantiisa iyo u badiyo kor ugu qaad, nabadgelyana si diintiisa iyo qabrigiisa ku nabadgalo. sidaas Sheekh Uthaymeen leeyahay. marka qofku wuxuu ku soo koobi karaa allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad. hadduu rabo tadheer ee ibraahimiyadana iyada fadli badan qofku uu akhrin karaa, laakiin hadduu rabo iyada kooban waa inuu kulmiyo saliga salaanta. marka inaan ku dadaalno insha Allah ta'ala saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.